وأنا سلام دمان صاحبتها كحنا janaalkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago wararkii ugu dambeeyay arrimaha aflaamta hadii aan lahayn aflaamta subaxnimadii hore saaka tiyaatarada Hindiya la saaray kuwa hore u saarnaa wararkii ugu dambeeyay laga qoray Bollywoodka sidoo kale dhankaasi ka Hindiyan waan eegi doonaa balse intaan u gudiga kale muuqaalkayga waxaan ka codsanaa inaad janaalka soo biirto muuqaalka dadka sheelaga noo saar si share gareeyo la wadaaga asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal haddii aan ku bilaabno aflaamta tiyaatarada subaxnimadii hore saaka la saaray aflaam waabin ayaa tiyaatarada Hindiya la saaray Bollywoodka sidoo kale koonfur Hindiya ama North iyo sidoo kale South marka la yiraahdo ama loo dhigo dhanka Bollywoodka filimka Raid qaybta labaad oo ajee iyo sidoo kale Ratish iyo Veena Kapoor hogaamiyay leeyihiin subaxnimadii hore saaka ayaa tiyaatarada Hindiya la saaray filimkan wuxuu ku furmay 22.3 taasoo ka dhigay in filimkan aad u hooseeyo yani sidii hore la rajeynay filimkan waxa la rajeynay in boqolkiiba adiga 70 wax ka badan inuu ku furmi doono laakiin aad ayuu hooseeyaa filimka xitaa sheekadiisa lama amaanin oo waxa la siiyay shantiba labo ayaa la siiyay dhib ahaan labo oo kaliya ayuu haysta filimkan sida shaac laga qaad xateer waxa la leeyahay filimkan guul saas u weyn ma gaari karo ajee filimkan waxa laga yaabaa inuu ka guul dareysto saaxiibayaal aflaam kale ayaa jira oo tiyaatarada Hindiya la saaray ama dhankaasi koonfur Hindiya Raid ayaa qayb ka ah Raid asigu wuxuu ku furmay 75 boqolkiiba ama in ka badan boqolkiiba 75 ayuu ku furmay dhankaasi Tamil marka la eego sidoo kale aflaamta kale waxa kamid ah horta Raid waxa hogaamiye ka ah Suuriya halka Hidna uu kamid yahay aflaamta tiyaatarada saake la saaray Nani ayaa hogaamiye ka ah filimka asigana wuxuu ku furmay 79.57 boqolkiiba taasoo ka dhigay filimkani yani bilaawashadiisu aad u wanaagsan tahay aflaamta kale waxa qayb ka ah subaxnimadii saakila soo qaadan karaa Kaysari inkastoo muddo laba isbuuc oo tiyaatarada saaray haddana wuxuu ka dhow yahay sida uu ku furmay saakadan marka la eego ajii filimkiisa cusub oo saaka tiyaatarada la saaray Kaysari wuxuu ku furmay 13.8 boqolkiiba halka ajii filimkiisa saaka uu ku furmay asigoo cusub 12.3 boqolkiiba saaxiibayaal Kaysari aflaamta tiyaatarada saaray ayuu kamid yahay 13 maalin ayuu tiyaatarada saaray maalintii shan wuxuu soo xareeyay lacag dhan 12 ama 2.15 karar oo kaliya aflaamta kale ee subaxnimada saakay sida wanaagsan u furmay waxa kamid ah Taturam oo Mohanlal hogaamiye uu ka yahay 73 boqolkiiba ayuu ku furmay filimkani asigana wuxuu kamid yahay aflaamta yani tiyaatarada saaran filimka inkastoo hit uu noqday haddana saaka wuxuu ku furmay ama wuxuu sameeyay bilaawasho aad u wanaagsan filimkan Taturam oo Mohanlal hogaamiye ka waqtigan la joogo waa hit dhameystiran marka la eego filimkan 45 karoor ayaa lagu gatay kooxda kale tan waxay ka heleen 47.20 karoor suuqyada caalamka wuxuu ku soo xareeyay 96.80 karoor filimkan marka la eegana waxa uu hadda wataa ama ay wataan kooxda filimkan iibsatay 1.20 karoor oo profit ah filimkan waa hit dhameystiran maalmaha soo socdan wuxuu noqon karaa blockbuster weyn saaxiibayaal dhanka kale waxa shaac laga qaaday filimka Good Bad Ugly oo Ajit Kumar hogaamiye ku yahay inuu noqdo filimkii labaad ee lacag ugu badnaa soo xareeyay gudaha Hindiya sanadkan 2025 kaliya Java ayaa ka lacag badan filimkan waxa uu soo xareeyay in ka badan 270 karoor Ajit Kumar filimkan waxa uu noqday filim guul weyn gaaray dhanka kale waxa xusid mudan in Jilaagan maanta u dabaaldegay sanad guulada dhalashadiisa ama u dabaaldegi doonaba sanad guulada dhalashadiisa 54 Jilaagan wuxuu ka da'yar yahay ninka lagu magacaabo Saif Alqan iyo Jeedif Gambada ah oo ka yar yahay laakiin muuqaal ahaan markaad aragto waxa isleedahay ninkan aad ayuu u weyn yahay laakiin waa 54 jir Saif Alqan ayaa bila ka weyn Saif Alqan Agosto sanadkan ayuu noqon doonaa 55 jir halka Ajee uu ka sii wada weyn yahay labadoodaba Jilaagan Ajit Kumar waa mid kamid ah aktarada dhankaasi koonfurta Hindiya aad looga jecel yahay aflaantiisa warar kale waqtigan taagan kuwada ugu waaweyn waxa qaybka Jeedif Gan ayaa shaaca laga qaaday inuu hoos u dhigay lacagaha uu ku sameeyay filimka Dhamaal qaybtiisa afraad soo saaracanka Fashion Kumar ayaana shaaciyay in Ajee lacagta uu ku sameeyay ama lacagaha uu ku sameeyay filimkaas inuu hoos u dhigay waxa uu yiri Ajee waxaynu nahnay dad saaxiibo wada ama saaxiibo isku dhow muddo isla soo shaqeeyay Ajee ayaana ogolaaday inuu lacagta uu ku sameeyay filimkaas inuu hoos u dhigo maadaama filimkaas heavy budget uu yahay ama lacag aad badan lagu sameeyay taxanahaasi saaxiibayaal ugu dambeyn markaan waxaan eegi doonaa aflaamta maanta oo kale soo bax kuwada ugu caansan waxa qayb ka ama soo qaadan karna filimka lagu magacaabo Gabbar Isbaag ama Gabbar filimka Akshay Kumar hogaamiyaha ka maanta oo kale ayuu soo baxay 1 May sanadii 2015 natiijada waxa uu noqday film sami hid ah ama guul weyn gaaray aflaamta kale maanta oo kale soo bax kuwada ugu caansan waxaan soo qaaday kana filimka lagu magacaabo Anto number 1 Soomaalida xilliga shaleemoonka aad ayuu xiisan jireen waxa ku jirta tiraastii caanka ah ee Bulbulari filimkan waxa uu soo bax markii aan eegnana 1 May sanadii 1998 natiijada waxa uu noqday below average waxa ku sagtay inuu guul dareysto saaxiibayaal haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeeyay muuqaalkayga fadlan haddaad ka heshay muuqaalka like noo saar si share gareeyo la wadaaga asxaabtaada janaalka dadku cusubtaana ku soo biir oo ku maasan tahay daawashada muuqaalkeena